السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كريبتو soo dhawaada kusoo dhawaada channelka Omaya Exchange kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal kale maanta waa iska axad waa weekendi wax hadda akhbaar oo hoos waxda aan idin hayn ma jirto laakiin intaas waxaan jeclaysanay inaan isla sii wadaagno maxaa la yiraahdaa muuqaalo aan xog wareysi ama maxaa la yiraahdaa aan kaga hadlayno mowduucyo gaar ah oo ku saabsan cryptocurrencies-ka haddaba haddii videogan yahay video ugu horeeyay ee ka soo gaaray channelka Omaya Exchange videogan la garay sidoo kalena u share garay dhammaan asxaabta xiiseynayso arrimaha ku saabsan cryptocurrencies-ka sidoo kalena channelkan subscribe garay si aad ula socoto warbixino iyo sidoo kale news iyo akhbaar ku saabsan cryptocurrencies-ka oo mar walba update si maalinle ah sidoo kale channelka waxaa ka heli kartaa cashiro ku saabsan cryptocurrencies-ka bilow ilaa dhammaad tutorials iyo waxyaabo badan oo wax aad ka faa'iidi doonto hadduu al yiraahdo haddaba waxaan sii guda galaynaa maanta waxaa ka hadlaynaa wax loo yaqaano maadaama hadal hayn badan hadda ay jirto oo cryptocurrencies-ka waxaas ay noqdeen trendy kan marka ma yahay bull run-kii oo dadka waxyaabaha ay sugayaan bull run-kii xilligiisa ma la gaaray saa hadda aan maxaan la ka warqabno dadka intooda badan waxay isweydiiyaan bitcoin-ka hadda way kacsan tahay sidoo kale altcoins-ka qaar aad ay u kacsan yihiin dadku waxay isweydiiyaan marka ma la gaaray talow waqtigii bull run-ka mise wax hadda aan maxaa la sugi karin waay waqti xaadirkan arrintaas aan rabnaa inaan kala dhigno aan isla fiirino arrintaas sidoo kalena adinkana fikirkiina aan uga caawisiin halkan waxaa kugu sharxi doonaa maxaa la yiraahdaa 3 sababood aan isleeyahay suuqa uu kacsan yahay baryahan ama uu u shidan yahay oo waxba ka soo gooxaya qodob koowaad wuxuu yahay halving wax la yiraahdo bitcoin halving cid aanan ka warqabin haddii aad channelkeena fiidiyoyada hore ugu laabato muuqaalo badan oo aan uga hadlayno ka soo heli doontaa sida hadda muuqaalka labaad ee serieska oo ku jira YouTube-keena haddaad dib ugu laabato bitcoin halving iyadoo la sharxay waa ku arki doontaa hadduu la yiraahdo bitcoin halving waa dhacdo 4 sano oo mar dhacdo oo hadda 2024 April eventigaas uu ku aadan yahay 4 sano kastana mar walba uu dhaca taasna marka waxay keentaa ama maxay saameyn ku yeelanaysaa waxay half ka dhigtaa ama ay half ka dhigtaa abaalmarinta lagu bixinayo bitcoin-ka maxaa la yiraahdaa blog cusub la xiro abaalmarinta mining-ka dadka sameynaya markay abaalmarintaas la siinayo half laga dhigaa halving marka kaas la yiraahdaa marka arrintaas marka waxay keentaa oo lagu yaqaan mar walbaba in markii arrintaas dhacdo ama ay soo dhowdahayba bull run-kii uu halkaas bilowdo oo wax walbaba qiimahooda ay kacaan bitcoin ugu horeeyo kan labaadna waxay tahay maalgashadayaasha oo institutionalka ah maalgashadayaashu way kala yihiin kuwa waxaa jiro maxaa la yiraahdaa anaga hadda camal ah oo retailiska aan ahay laakiin dadka institutionalka ah ayaa waxay bilaabeen inay wax iibsadaan maalgashadayaasha waaweyn ama ciyaartooyda waaweyn ee suuqa sida BlackRock iyo sidoo kale Fidelity iyo kuwaas waxay bilaabeen iyakana inay wax iibsi bilaabaan ama ay gataan oo suuqa ay soo galaan iyakana hadday suuqa soo galaan taas macnaheedu waxay tahay ciyaar horta waxay u iibsadaan iyaka waxba ka dambeeya inay bitcoin-ka iibsadaan ama assets-ka kale taasna way keeni kartaa marka in uu suuqa bull run-kii uu bilaabo arrinta saddexaad waxay tahay wax loo yaqaano retail FOMO wax loo yaqaano dib u soo laabtay retail FOMO waxaa la yiraahdaa maadaama hadda dadka oo aadka u waaweyn aan ahayn oo dadka retailiska oo lacagaha yaryar gashanayo faa'iidada yar raadinayo FOMO ayaa qaado iyakana sababkiina ka yaray cryptada waa sideeda waxa waaye maxaa la yiraahdaa waa hype oo waxay ku tirsan tahay iyada trendy haddana waqti xaadirkan saa ognahay trendigeeda kaasan oo cryptada waa trendy haddaba trendigaas marka wuxuu keeni karaa oo dadka markay arkaan in oo maxaa la yiraahdaa cryptada ay ka ayso qof walba FOMO qaadi doono FOMO soo marka saas la dhahay FOMO maxaa la yiraahdaa xilligiisa soo laabtay FOMO intuu dadka qaado oo isleeyihiin ha misin garaynina faa'iidada ama waxa la helay doono oo suuqa hadda gata taas marka iyadana dad badan maadaama hadalhayntii ay badatay dad badan suuqa soo galay haday dad badan suuqa soo galaana priceska kor ay u kacaan iyadana taasna iyadana sababaha ay ka mid tahay balse waxa u maleynaa marka intaas xog warbixin maadaama oxiyay sababahaas aan ku sheegay in adiga hadda aad u fafakanayso suuqa oo lacagayna u raadisay laga yaaba laakiin suuq oo mar walba ka taxadar iyadana danka kale hadii aan ku sheego oo waxa iska ilaalisaa oo mar walba ka digtoonaata ama ogaataa in dhaqaaq walbaba ama bambi kasto suuqa sameeyo inuusan ahayn ama bull run-kii la yaqaan halka dhaqaaq yar inuu sameeyo kadibna uu hoos u sii socdo taas ka taxadar sidoo kale inta lagu guda jiro bull run-ka intuusan bilaaban ama markuu bilowdaba waxaa jiri doona sare u kacyo badan iyo sidoo kale hoos u dhacyo badan jiri doono inta aan targetkii markaas ama bull run-kii oo dhameystiran aan arkin marka mid kasta waxa ku kadsoomin sidoo kalena maxaa la coins random mar walba ha ku bodboodin inta bull run-ka uu socdo adiga marka hore strategic noqo oo marka hore waxaad degsataa
maxaa la yiraahdaa portfolio-haaga saxo oo waxa ku shubataa wixii markaas as leedahay adiga cilmi baaris badan ama baaris badan waa ku samaysay sidoo kalena si caqliyeysan u dooratay markasta markaa ku badboodin random coinskaas ku eko kuwa aad maxaa la yiraahdaa si caqliyeysan u soo dooratay ama go'aamo caqliyeysan ku qaadatay ha ku badboodin kuwa badan macna oo ku khasaari doonta hadii kale haddaba intaasoo sababood markaas la fiirinay iyo sidoo kale riskiska iska ilaalinayso adiga mis leedahay waa sax oo waxa la gaaray waqtigii bullranka mis waxaad leedahay wax badan ayaa ka dhiman haddaba maxal la saadaalintaada iyo fikirkaaga xagga hoose ee commentiga noogu reeb sidoo kalena u share garay muuqaalkan inta qof aad leedahay way qusaysaa ama maxaa la yiraahdaa way ka faa'iideysanayaan asxaabtaadana u share garay oo cryptocurrencies ka xiisaysa sidoo kalena maxaa la yiraahdaa channelkan subscribe garay sidoo kale gambaleelka yare meesha subscribe-ka u dhowna maxaa la yiraahdaa furo si wixii cusub markaas aan soo gudbino ha noqoto warbixin ha noqoto maxaa la yiraahdaa warar ha noqoto sidoo kalena wax aan kala faa'iideyno wax walba noqdaanba halkaas aad kala socon doontaa haddii la yiraahdo gambaleelka furo inta warbixin tan oo kale aan ku kulmi doonana nabadgelyo